Assalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaad videogan maanta videogan wuxuu ku saabsan yahay sida youtube-ka commentiga loo format gareeyo amba qoraalka loo bedbedelo oo qoraalka waaweyn amba cursive loo qori karo markaa kusoo dhawaada mar labaad. asxaabta marka koobaad youtube-ka ayaad tegeysaan kadib youtube-kiina amba meesha commentiga aad kasoo bixinaysaan amba youtube aad kasoo bixinaysaan markaad tagtaan aad halkan videoga commentiga hoose aad taabataan kadib waxaad qoraysaan kale markaad qoraalka rabtaan inay qoraalku wax far waaweyn oo kala noqdo kadibna qoraalkii ayaad qoraysaa kadibna labada koone ayaad xidig kaga qoraysaa kasii raacinay sida iminka oo kale qoraalkaas aan qoray hadduu cursive aad rabtay qoraalka inuu kuu noqdana waxaad labada xariiqood ee hoose ayaad ku daraysaa oo aad raacinaysaa. haddii aad rabtid in qoraal dhexda ka xariiqsan uu kuu soo baxo amba xariiq dhexda kaga jirtona xariiqda yar dhexda ayaad raacinaysaa kadibna sidaas ayuu kugu soo baxaya qoraalku markaad hadeer commenti ka bixisid oo qoraalkii sidii aad rabtay oo qoraalkii format garaysan ayaa kuu soo baxaya. waxaad kaloo samayn kartaan kale qoraal markaad qortaan qayb far waaweyn aad ka dhigi kartaan qaybna cursive aad ka dhigi kartaan sida imka qoraalkan aan iminka qoray iminka kale waxaan ka dhigay cursive salaamayna waxaan ka dhigay far waaweyn oo bold marka taa lafteeda waad samayn kartaan qoraalkana waxaanad u isticmaali kartaan amba ku samayn kartaan computerkiina idinkoo moolkiina isticmaalayana lafteeda waad ku samayn kartaan oo commentigiina waad ku format garayn kartaan markaa asxaabta videoga intaas inoogu eegyahay. asxaabta videoga intaas inoogu eegyahay fadlan hadduu videogan ku qanciyay amba aad wax ka faa'iiday noo sii like garee si aad videoyo kuwan lamid ula socotidna noo sii subscribe garee channelkan.